Somaliland waxaan u kacay qarankeena Somaliland difaaciisaan u kacay waxaan u kacay kalgacaylka aan u hayo qarankayga ayaan u kacay waxaan u kacay cadowga Somaliland inaynu tusno inaan Somaliland waxba laga qaadi karay sawcaynka maaha waxaan doonayaa inay arkaan kuwa Somaliland ka doqonka ah iibsada ee ku dira qarankooda ayaan doonayaa inay ogaadaan inay Somaliland tahay midaan la isku diri karayn midaan la iibsan karayn waxaan u kacay doorashooyinkan inagu soo food leh waxay ka mid tahay waxyaabaha horumarka ah ee qarankeenu sameeyey waxaan doonayaa oon ku aaminayaa dalkayga Somaliland ciddii difaacaysaan ku aaminayaa cidda sidaan u jeclahay u jecel baan difaacayaa waxaan codkayga siinayaa ka cadowga Somaliland ka soo horjeeda ayaan codkayga siinayaa waxaan doonayaa mid iyo laba doqona waa laynaga kaxaysan innagaa baan rabin laakiinse qofka Somaliland u damqanaya qofka Somaliland ku faanaya qofka Somaliland jiritaankeeda doonaya codkiisa meel aan marin maayo aan ahayn ciddii Somaliland difaacaysa waxaan qarankeena Somaliland in badan oo intaa jirteen in ka badan baan ku noolaa waan wada garanayaa qaar badan waxar kuma aamineen kuwa madaxnimada doonaya waxar kuma aamineen hogaaminna hadalkeed baddaa xaggay weligood wax may hogaamin hogaamintu waxay tahay ma yaqaanaan wax burburi bay yaqaanaan wax dubi bay yaqaanaan xasidnimada yaqaanaan colaadda yaqaanaan horumar ma garanayaan mana rabaan marka waxaan doonayaa dardaarankabaad iga gunta caawa ka miyi jooga iyo ka magaalo jooga Somaliland laba xisbi ayuunbaa badbaadin kara midnaba anigu kuma jiro laakiin qaranka wixii badbaadinaya ayaan anigu taageeraa laba xisbi baa ayaan Somaliland badbaadeeda mid waa kulmiye midna waa horseed waxaan doonayaa inaynu nabadgelyadeena ilaashano inaynu horta nidaamkeena hagaajisano waan jeclaan lahaa bishaa inagu soo food leh wax kasta waa laydinku dayi waa laysku kiindiri laakiinse dhag u dhigi mayno waayo bartilmaameed baynu leenahay bartilmaameedkana waa guusha Somaliland yaa igu raacsan Somaliland yaa jecel intiina ay intay naga maqan waxaan doonayaa bartilmaameedkana waa Somaliland waa badbaadada Somaliland waa horumarka Somaliland waa mustaqbalka Somaliland waa guusha Somaliland waxaan doonayaa codkiinaasu madaxdiina madmadow in la tirsado la ogaado
waxaan idinka rabaa 60,000 oo cod baan idinka rabaa oo beeshaasoo keliya ah ma 60,000 baynaan ka heli karayn oo meel keliya wada mara 60,000 meel keliya wada martaynu doonaynaa cid kale cod iska siin mayno shalaynu ku hungownay kuwaad shalay codkiina siiseen maanta Soomaaliland bay ka soo horjeedaan maanta Soomaaliland bay iibsanayaan ma mar kale haddana ugu soo celinaa ma mar kalenu siinaa awood ay nagu jijabiyaan siinaa waxayna soo maray dhibaatooyin badan iyay naga saaray haddii ilaahay laga baqo muuse biixi bay naga saaray muuse biixi ayay naga saaray dagaalayna soo maray lawi cadday noo dhaafi lahayn haddaanu muuse biixi halkaa joogeen waxayna soo maray cudurrayna soo maray waxayna soo daray dagaallo adduunka ka dhacay waxayna soo maray waaheen bay naga gubtay waxayna soo maray wajaalay naga gubatay wax masiibaanayna soo marnin ma jirto haddana waynagaa ka nool waynagaa kobcayna waynagaa sii weynaanayna sii wanaagsanaanayna marka aniga dardaarankayga waxa weeyaan dardaarankayga ma qaadanaysaan mise ka shaydaankaydin qaadan kaydin burburinaya maad qaadan kaydin necab dardaarankiisa miyaad qaadan haddaba dardaarankaa iga gunta waynu wada codaynaynaa horta cod guri la fadhiisan mayno waxaan doonayaa tiradeenna baaxaddeeda intaynu la egnahay inta ballaadhkeennu yahay in la ogaadaan doonayaa xooggeenna la ogaadaan doonayaa quwaddeenna la ogaadaan doonayaa waxaan doonayaa guusha sanadkaas inay noqoto dhoolatus cadowga la tuso lacag kasto ay shaydaanka u soo dhiibaan lacag kasto ay nagu iibsadaan oo isku daya nagu iibsadaan haddana innagaa guusha leh innagaa guusha yeelanayna waxaan doonayaa codkiina waad bixinaysaan waad u soo baxaysaan xisbiyada waad taageeraysaan qofkaad doonto taageer laakiinse qarankaasaad taageeraysaan qarankaad taageeraysaan iyo ciddii qarankaa kuu badbaadinaysaad taageeraysaan sidaa ma isku ogaanaa waa markii ugu horraysay ee aad ololo xisbi u soo baxo maxaa igu kalifay xasan sheekha halkaa soo fadhiya ee jiritaankiina ka xanuunsanaya ayaan doonaya indhaha faraha laga geliyo ona xasan sheekhow wixii aad bixisay way kaa khasaartay waa kan shicibkii Somaliland waa kan dadkii Somaliland waxaana madaxnimadana ku guulaysanaya inta xasan sheekh iyo Soomaaliya ka soo horjeeda ee xasan sheekh nacab ee burburka Somaliland jecel ayaa guulaysanaysa marka ducadaasaan kaga tagayaa guul baan kaga tagayaa dardaarankaasaan kaga tagayaa waxaan doonayaa inaan idinka arko caawo kaliya ma